Hey, السلام عليكم. And qoladan la leeyahay reer galbeedku waxa aanay maamulin ama waxayna iyagu gacanta ku haynin waxay u yaqaanaan inuu wax cadow ku yahay. Imika social media network ama muxuu hayay technologies-ka waxyaabaha ugu dambeeya ee aanay maamulin waxa ka mid ah waxaan loo yaqaano TikTok-gan aynu isticmaalayno. Marka imika waxa jirta muxuu hayay waxay isku dayeen inay TikTok Mareykanka ka baan gareeyaan ama ay ka joojiyaan. Mareykanka oo waxa isticmaalaa 150 milyan oo user baa ka isticmaala. Marka waxay doonayaan inay TikTok ka joojiyaan Mareykanka. Sababta ugu weyn ee looga joojinayana waxa weeyaan anagu ma maamulno, anagu iskama lihin. Marka waxaan maqlay waxa la sameeyay waxay sameeyeen qoladan TikTok la yiraahdo ayay codsiyo ka dalbadeen Mareykanku. Marka waxay ku yiraahdeen inay nasiyaan share ama muxuu hayay in shares laga siiyo muxuu ahaa TikTok ayay dalbadeen laakiin TikTok way diideen waxay yiraahdeen idinka siinin saad ogtihiin TikTok China ayaa laga leeyahay marka waxay sameeyeen waxay doonayaan inay Mareykanka ka baangareeyaan oo gabi ahaantiisba ay ka joojiyaan oo dadkii u bahla geliyaan oo yiraahdaan muxuu ahaayay datadiina ama informationkiina loo isticmaalayaa si kala gooniya oo dawladda China ay u isticmaalaysaa waa la inagu soo duulayaa dawladda China la shaqeeya TikTok waxyaabo noocaas ah maaragtay laga hor akhriyaya dadkii marka waxa la sameeyay maalmo dhow toole CEO-ga ama maamulihii guud shirkaddan TikTok ayaa loogu yeeray muxuu ahaa Mareykanka oo Congress-ka hortiisa maaragtay wax laga weydiinayay waxyaabahan la xiriira maamulkiisa iyo sida ay u maamulaan TikTok iyo waxyaabahaas su'aalaha la weydiinay hadda aragtaan qosolka ay ka dhamaan doona I think qof walba uu arkay marka haddii imika kale hadda doonaysaan imika marka social media ama network-yadan adduunka laga isticmaalo ee imika la isticmaalo dhammaantood waxa ugu caansan waa maxay waa Twitter, Facebook, Instagram dhammaantood waa inta iyo Google-ka oo isaga laftiisuna waxyaabaha qaar leh okay waxa la sameeyaa wax la iraado they filter out stuff like muxuu ahaa waxa la doonayo in la tuso dadka ayuun baa la tusaa narrative ka gooniya waxa adduunka ka dhacaya ama aragti ka gooni ah waxa adduunka ka dhacaya waxa la tusaa dadka ma garanaysaa ko kale kaba soo qaad imika waxaad u fiirsataa haddaad doonaysa inaad ogaato markaynu ka hadlayno imika kale TikTok censorship waali ah ma sameeyo censorshipka marka laga hadlayo reality-ga waxyaabaha adduunka ka socda oo kale reality-ga iskuma dayaan inay censor gareeyaan for now waxaa jirta markaa qoladan la leeyahay Facebook haddaad imika u fiirsato Facebook way ka ganacsadaan daatada meesha taalla adduunka Mareykanka waxa ka dhaca ama reer galbeedyada waxa ka dhaca lama boombooniyo laakiin haddaad aragto muxuu hayay Middle East-ka iyo Africa iyo waxyaabaha ka dhaca oo dhan si waxay u boombooniyaan aan caadi ahayn marka waxa jirta imika haddaad u fiirsato doonaysa inaad ogaato difference-ka u dhaxeeya social media-han imika Instagram ama Meta iyo TikTok waxaad samaysaa imika baryihii u dambeysay ilaa bishii u dambeysayba France waxa ka socday mudaharaadyo waali ah oo maciishadii oo qaaliyowday waxyaabo badan oo kale oo dhacay siyaasadda ninkan waddanka haysto oo laga soo horjeedo waxyaabahaas oo dhan ayaa mudaharaadyo waxa ka dhacay waali ah oo dee aad u hawl badan haddaad imika Facebook ka baadha ama haddaad imika kale Instagram inta tagto search-kiisa ku qorto France ad ku qorto waxa ku soo baxaya quruxda France oo kaliya Paris iyo waxa dhacaya adduunka hadda ka socda ma soo baxaya laakiin TikTok hadda tagto ad ku qorto France waxa ku soo baxaya muxuu hayay waxa ka socda hadda protesting-kii iyo sheekadii iyo wixii meesha ka socdayba maalinta ku soo baxaya marka waxyaabahaasi doonayaan narrative-kii ay maamuli jireen adduunka sida loo arkayay sidii ay u maamuli jireen uma maamuli doonaan haddii maaragtay social media platforms-ka waaweyn lagala wareego reer galbeedka marka dagaalku halku ka socda waa halkaas